markii ilmo yar oo shabeel ah uu bilaabay in yeydu ay ugaarsadaan ee cabsi badan ayay khasab ku noqotay inuu la midoobo xayawaano kale si ay ula dagaalamaan dhammaan kooxdii yeyda ahayd. beerta madadaalada ee yar oo la yiraahdo Makis ayaa daawanaya carruurta oo ku ciyaaraya xayawaanka kale isagoo saaxiibadiisa u sheegaya in guriga ay ku adag tahay in ilmo yar lagu soo kordhiyo. Makis wuxuu ahaa mid u malayn jiray in midaas aysan weligeed dhicin sababtoo ah mulkiilihiisa Kati mar walba keligiisa ayuu ahaa. laakiin kadib Kati waxay la kulantay ninka la yiraahdo Joog oo baaskiil watay waxaana ku dhacay jacayl. waqti yar kadib labadooduba way isguursadeen. Katina uur bay qaaday. ugu dambeyntiina waxay dhashay wiil yar oo lagu magacaabo Liam. inkastoo Makis uusan carruurta jeclayn wuxuu ku qasban yahay inuu la qabsado. ugu dambeyntiina wuxuu la noqday saaxiibka ugu fiican ee Liam. xitaa Liam wuxuu baranayay inuu u dhaqmo sidii eeyda oo kale. sababtan awgeed Makis wuxuu sameeyay xiriir gaar ah oo uu la yeesho Liam wuxuuna noqday mid aad u ilaaliya isagoo walwal badan ka muujinaya marka ilmuhu wax khatar ah uu sameeyo. dhinaca hoose Bakayle yar ayaa la ciyaaraya qofka daryeelaya oo isu maleeya inuu yahay geesi dhab ah wuxuuna isku magacaabay Captain Snow. markuu iska dhigayay inuu magaalada badbaadinayo Makis ayaa arkay oo la hadlay Bakaylaha isagoo uga warramay ilmaha yar. Snow wuxuu weydiiyey haddii Liam diyaar u yahay inuu iskuul aado taas oo Makis ka nixisay. Makis wuxuu ku adkaystay in ilmaha uu ku sii jiro guriga si uu ugu jiro ammaantiisa. intay arrintaas ka hadlayeen Duke ayaa yimid oo sheegay in Joog uu Liam socod u waday taas oo Makis ka welwelisay. si uu ogaado meesha uu ilmaha joogo Makis wuxuu weydiistay saaxiibadiisa caawimaad waxaana u jawaabay mid la yiraahdo Norman kaas oo adeegsaday gaari yar oo kontarool ah si uu ula socdo. Norman wuxuu raadiyaha uga sheegay Makis in Liam uu buskud cunayo laakiin inkastoo arrintu caadi tahay Makis haddana wuu welwelay. markay arrintaas aragtay Kati waxay Makis u kaxaysay socod taas oo aad ugu farxisay ilaa uu ogaaday in socodku ku dhammaanayo dhakhtarka xoolaha. Kati waxay ku tiri Makis inuu maalmahan aad u walwalsan yahay waxayna ku qasabtay inuu gudaha u galo. halkaas ayuu ka ogaaday in dhakhtarku ku takhasusay dabeecadda xayawaanka wuxuuna arkay xayawaan kale oo si la yaab leh u dhaqmaya. markuu guriga ku soo laabtay Makis waxaa lagu qasbay inuu xirto koofiyad balaastig ah si uusan isku xoqin taas oo ka hor istaagtay inuu ku ciyaaro alaabtiisa yar ee shinnida ahayd. intuu weli shinnida raadinayay Duke ayaa yimid isagoo faraxsan wuxuuna sheegay in Joog sheegay inay safar ay tagayaan. Makis aad ayuu u farxay wuxuuna isku dayay inuu shinnidiisa yar u dhiibo bisada laakiin iyadu ma aysan dhagaysan. sidaas darteed wuxuu u dhiibay Giget waana ay yar oo deriskooda ah. Giget oo jacayl u qabta Makis waxay shinnida yar u aragtay sidii ilmo ay daryeelayso waxayna ballan qaaday inay si wanaagsan u ilaalin doonto. kadib Makis iyo qoyskiisa waxay raaceen baabuurka waxayna tageen beer weyn oo reer guura ah halkaas oo ay safarkooda ku raaxaysanayeen. Giget waxay ku riyoonaysaa inay Makis nolosha la wadaagto balse waxay ku dhacay dayac. shinnidiina yar ayaa si kama ah uga dhacay balakoonka. markii shinnida yar ay ka dhacday balakoonka waxay ka soo booday dabaqyada ilaa ay ku dul dhacday daaqada guri kale. Giget oo aad uga welwelsan ayaa halkaas aaday waxayna ogaatay in guriga uu yahay hoy ay ku nooshahay haweeneyda weyn oo keligeedii ah. markay ku kalsoonaatay inay soo qaadan karto shayga bisad ayaa kursiga hoostiisa ka soo baxday waxayna bilowday inay la ciyaarto shinnida. markay maqleen dhawaaqa shinnida bisadaha kale ee guriga joogay oo badnaa weliba boqolaalka ahaa ayaa iyaguna yimid mid walbana wuxuu rabay shinnida. dabaqyo kor u jiray Collie iyo Snow ayaa iskala ciyaaraya markii ay yar oo lagu magacaabo Daisy ay daaqada ka soo gashay iyadoo weydiinaysa haddii ay yaqaanaan geesiga dhismahan. Snow isla markiiba wuu isku faaniyey wuxuuna weydiiyey waxa loo baahan yahay. Daisy waxay u sheegtay in ay aragtay xayawaan la silcinayo oo u baahan in la badbaadiyo. markaas ayuu Snow aad u farxay qolkana galay dharkiisii geesiga ahaa ayuu soo xirtay isagoo iska dhigay Captain Snow wuxuuna ku soo noqday Daisy si uu u fuliyo hawsha. Daisy waxay u sharaxday in ay ku ciyaaraysay qaybta boorsadaha diyaaradda waxay maqashay dhawaaq aan caadi ahayn. markay fiirisay waxay heshay qafis daboolan oo uu leeyahay masrax lagu maaweeliyo. daboolkii markay qaaday waxay aragtay ilmo shabeel cad oo lagu magacaabo Huwi oo silsilado ku xiran. inkastoo aysan fahmin luqadda xayawaanka duurjoogta ah haddana way garatay inuu caawimaad u baahan yahay gaar ahaan markay aragtay milkiilaha masraxa oo si aan sabab lahayn ugu cagajiidaya qafiskiisa. Snow isagoo isu haysta geesi dhab ah wuxuu aqbalay hawsha wuxuuna la baxay Daisy si ay u tagaan beerta. dhanka beeraha Duke aad buu u farxay markii uu dareemay urta xoolaha wuxuuna bilaabay inuu si aan xad lahayn ugu ordo beeraha laakiin Makis wuu ka baqay oo wuu dareemay inuusan meesha ku habboonayn wuxuuna jeclaa inuu si dhaqso ah u guriga ugu laabto. intii ay socdeen eeydu waxay la kulmeen Turki oo Makis daba ordayay. halkaas waxaa joogay eeyda xuduudaha ilaalisa ee beeraha kaas oo qaylo ka qaaday baabuur burbursan oo uu ku jiray. qayladiisa ayaa ku qasabtay Turkiga inuu iska tago. kadib Makis wuxuu noqday mid aad u ilaaliya oo aan rabin inuu Liam dhinaciisa ka fogaado. Duke markuu arkay saaxiibkiisa oo aad u walwalsan wuxuu ku casuumay ciyaar labadooduna waxay bilaabeen inay la socdaan shimbiraha yaryar ee nalalka leh. laakiin Makis oo ah ee magaalada ku koray ma uusan baran cayayaanka wuxuuna aaday meel biyo yaalaan si uu wax uga cabo. halkaas ayuu ku arkay Rooster oo ah eey weyn oo beeraha ku koray kaas oo xanaaqay isagoo leh weelkan aniga ayaa iska leh. si uusan muran u dhicin way isfahmeen oo waa ay wada sheekaysteen. Rooster markuu arkay Liam oo ku jira qafis yar wuxuu weydiiyey sababta. Makis wuxuu ku jawaabay in ilmaha uu halis u geli karo inuu baxsado oona dhaawacmo. laakiin Rooster wuu ka hor yimid fikirkaas wuxuuna yidhi carruurtu waa inay helaan xorriyad ay ku ciyaaraan kadibna wuu iska tegay. dhanka beerta madadaalada Snow iyo Daisy waxay ku soo dhawaadeen masraxa si ay u raadiyaan shabeelka cad. kadibna waxay maqleen cod fargeeto oo la garaacayo waxayna arkeen milkiilaha masraxa oo isku dayaya inuu ku qasbo shabeelkii yaraa inuu ka boodo barkad biyo ah.
maadaama shabeelku uu ka baqayo meelaha dhaadheer milkiilaha wuxuu ugu hanjabay inuu ciqaabi doono taas oo kasii cabsi gelisay Huwi markuu arkay inuusan shabeelku uusan dhaqaaqayn milkiilaha wuxuu ku tuuray biyaha shaqaalihiisuna way qabteen oo waxay dib ugu celiyeen qafiskiisii markii uu xiray wuxuu ku hanjabay haddii uu farsamadan uu baran waayo beri shabeelka waxaa laga dhigi doonaa mid ciqaaban milkiilaha oo xanaaqsan wuxuu ku amray yeediisa inay ilaaliyaan shabeelka cad wuxuuna furaha qafiska ku xiray tiir agtooda yaalay kadibna sariirta ayuu ku seexday markii ninku ka tegay Daisy ayaa u soo dhawaatay shabeelka si ay u dejiso laakiin yeedu waxay ku amreen inay ka fogaato dabcan Daisy ma aysan ka yeelin yeediina waxay isku dayeen inay weeraraan balse silsiladihii lagu xidhay awgeed ma aysan gaari karin markaas Daisy waxay aragtay meesha furuhu uu yaalo waxayna go'aansatay inay xeelad u isticmaasho yeeda way ku soo dhawaatay si ay isugu duubaan silsiladaha tiirka taas oo ka caawisay inay ka qaadato furaha isla waqtigaas hogaamiyaha yeeda ayaa arkay Snow oo ku dhufanaya qufulka burus yar wuxuuna xoog u jiiday ilaa uu ka dabciyay tiirka uu ku xirnaa yeegu markuu xor noqday wuxuu ku orday beerta isagoo isku dayaya inuu qabto bakaylaha laakiin tiirkii ayaa ku xayirmay kuraasta ciyaarta fursadaas ayay Daisy ka faa'iidaysatay waxayna yeegii ku xirtay suunkeeda kadibna mashiinkii ayay dhaqaajisay taas oo yeegii kor iyo hoos ugu tuurtay dhowr jeer markii dariiqii uu furmay Daisy waxay ku noqotay qafiska waxayna furtay shabeelkii yaraa ee Huwi kadibna guriga ayay la aaday dhanka beeraha Makis wuxuu soo toosay oo uu daaqada ka fiiriyay inuu hubiyo Liam laakiin waxa arkay oo soo weeraray dawaco eegii cabsi awgeed gadaal ayuu u laabtay ilaa uu dhagax ku xayirmay laakiin intaan wax ka daran dhicin Rooster ayaa yimid wuxuuna weeraray dawacadii taas oo ka carartay mar kale ayaana Makis la badbaadiyay dhanka magaalada Giget waxay u tagtay Cooli si ay uga barato sida bisad loogu ekaado xitaa waxay xiratay taaj leh dhagaha bisadaha Cooli waxay bilowday casharadii iyadoo ku baraysay inaysan raacin kubada yar marka ay dhacdo si ay u ekaato bisad dab ah dhinaca wadooyinka Daisy waxay ka fikiraysay meesha ay shabeelka ku qarin karaan Snow wuxuu soo jeediyay in lagu daayo Bobis oo ah ay oo caruurta xanaanada ku jira waxbara laakiin markii Bobis uu arkay Huwi aad buu uga baqay wuxuuna ku dhawaaqay dhawaqa digniinta taas oo shabeelkii cabsi gelisay ilaa uu saqafka ku boodo shabeelkii markuu guri burburiyay Bobis wuxuu sheegay inuusan daryeeli karin laakiin eyda yar ee kale ayaa ku baryay ugu dambeyntiina Bobis wuu ogolaaday inuu shabeelka kormeero hal habeen oo keliya dhanka masraxa milkiilaha wuxuu ogaaday in shabeelkii la qaatay wuxuuna bilaabay inuu yeyda ku qayliyo intii uu xanaaqayay wuxuu arkay in Daisy ka tagtay shay lagu qurxiyo timaha wuxuuna yeyda siiyay si ay urka uga daba socdaan isagoo ku amray inay shabeelka cad soo celiyaan dhanka kale Giget iyada oo aan ogeyn khatarta saaxiibadeeda ku sugan yihiin waxay bilowday hawsha samata bixinta shinnida waxay aaday gurigii bisadaha iyadoo aan haweenaydii weynayd ogaan inay ay tahay inkasta oo ay cabsanaysay haddana waxay dhex gashay bisadihii badnaa oo waxay bilowday inay raadsato shayga ugu dambeyntii waxay ka heshay shinnidii dusha tiirka ay isku xoqaan bisadaha inkastoo ay tahay ee yar Giget waxay kor ugu booday shaygii si ay u gaarto shinnida balse waxay ka hoos heshay bisad weyn oo huruda iyadoo isku dayaysa inay aamusnaato ayay si tartiib ah ugu soo dhawaatay laakiin dhawaaqa shinnida yar ayaa bisadii weynayd soo toosiyey Gigay markii ay rajo beeshay waxay caawimaad weydiistay Norman wuxuuna adeegsaday laysarka si uu uga mashquuliyo bisada taas oo ka dhigtay inay ka boodo tiirka iyadoo shinnidiina soo qaadatay bisadii kale oo carooday waxay bilaabeen inay kor ugu soo boodaan Giget markaas ayay qorshe kale u adeegsatay waxay kaashatay Norman si ay ugu ekaato inay qaban karto dhibicda iftiinka cas markay bisaduhu arkeen eyga oo cunaya iftiinka cas way argagaxeen waxayna Giget u arkeen mid awood badan dhanka beeraha Duke iyo Makis waxay daawanayeen Rooster oo loda wada markaas ayuu doofaar yar ka baxsaday xayndaabka Duke wuxuu ku taliyay in loo yeedho Rooster balse Makis wuu diiday sababtoo ah wuu masayray oo wuxuu rabay inuu ismuujiyo Makis inkastoo aanu tababar lahayn wuxuu isku dayay inuu doofaarka ku celiyo xayndaabka laakiin waa uu fashilmay xitaa wuxuu jebiyey xayndaabkii idaha dhammaantoodna way baxsadeen Rooster markuu arkay xoolihii oo cararaya wuxuu dib ugu soo celiyey inta badan balse lax yar oo la yiraahdo Cotton ayaa ka maqnaatay maadaama qaladka Makis uu lahaa Rooster wuxuu ku qasbay inuu ka caawiyo waxayna labadooduba galeen keynta si ay u raadiyaan waxay dhaafeen durdurka iyo geedo qodxo leh ilaa ay ka soo gaareen buur aad u qaloocan inkastoo uu dib ku qabo Makis ayaa kor uga baxay buurta wuxuuna la socday Rooster ilaa ay ka heleen Cotton oo tufaax ka cunaya geed ku yaal meel buurta dhexdeeda ah Rooster wuxuu ku yiri Cotton in geedku uusan miisaankiisa qaadi karin wuxuuna u sheegay Makis in isaga laga doonayo inuu isaga soo dejiyo Makis oo aad u cabsanayay wuu diiday balse Rooster ayaa dejiyay wuxuuna ku yiri talaabada ugu horeysa ee lagaga adkaado cabsi waa inaad iska dhigto inaysan cabsi jirin talooyinkaas ayaa Makis dhiirigeliyay wuxuu geedkii hoos ugu degay isagoo dhowr jeer si xun u siiban gaaray markuu gaaray meel u dhow Cotton dhagaxyadii ayaa hoos u dhacay Makisna wuu ku dhacay meel hoose taas oo ku qasabtay inuu geedka dusha ka fuulo si uu laxda u soo gaaro laxdii waxay tiri lugtayda ayaa geed ku xayiran taas oo qasab ku noqotay Makis inuu jirida kor ugu fuulo markuu sidaas sameeyay xididadii geedka ayaa bilaabay inay furmaan Makisna wuxuu qabsaday jirida si uusan u dhicin markuu arkay in geedku uu dumin doono Makis wuxuu ku orday Cotton wuxuuna qabsaday dhabarkiisa ilaa uu ka sii daayay lugta daqiiqadii ugu dambeysay Makis wuxuu ku tuuray Cotton buurta kore isna wuu ka daba booday isagoo si adag ula halgamaya inuusan dhicin ugu dambeyntii inkastoo ay adkayd Makis wuxuu soo qaaday Cotton ilaa Rooster uu kaga soo jiiday meelaha khatarta ah markii ay badbaadiyeen dhagax kale ayaa cagta Makis ku fisay oo uu ku dhawaaday inuu dhaco balse Rooster ayaa badbaadiyay daqiiqadii ugu dambeysay kadib cabsi weyn labada ay waxay ku soo laabteen beeraha waxayna
waxayna idihii ugu dambeeyey ku celiyeen xayndaabka sidii inaysan waxba dhicin ayayna noloshoodii caadiga ahayd ugu noqdeen. dhanka magaalada yeydii waxay sii raacayeen raadkii Daisy ilaa ay heleen iyadoo u sheekaynaysa ay kale. markay aragtay yeyda, Daisy waxay ku carartay beerta iyadoo isku dayaysa inay ku dhuumato ay weyn oo kale hoostiisa. si kastaba ha ahaatee, yeydii waxay raaceen urkeeda taas oo ku qasbtay Daisy inay ku boodo scooter si ay uga baxsato. Snow wuxuu ciyaarayaa ciyaar video game ah markii Bobby ka soo muuqday daaqada isagoo soo celinaya shabeelkii isagoo leh Bowie wuxuu burburiyey gurigiisii oo wuxuu cunay TV-ga. Snow ma garanayo waxa uu sameeyo, markaas ayuu shabeelkii geeyey guriga Katy oo wuxuu seexiyey sariirta Makis. laakiin isagoo baxaya ayaa giigad qabataa. Eygu wuu wareeray oo wuxuu weydiiyey waxa uu samaynayo, bakaylahana wuxuu isweydiiyey sababta bisaduhu ay gadaasheeda u socdaan. labadooduba jawaab kama bixinin, waxayna iska dhaafeen hadalkooda. dhinaca iyo beerta, Makis wuxuu arkay Rooster oo baabuurkiisa aadaya, wuuna raacay. wuxuu ugu mahadceliyey talooyinkii uu siiyey, wuxuuna ku yidhi hadda wuu degan yahay. subaxda xigta markii Rooster uu baxayo, Makis ayaa bilaabay inuu macasalaameeyo, laakiin Rooster wuxuu ku qayliya dhawaq xoogan. Makis ayaa yaabay, wuxuuna weydiiyey waxa ku dhacay. Rooster wuxuu u sheegay in tan ay caadi ka tahay beerta, wuxuuna weydiinayaa haddii uu isaguna isku dayayo midan. habeenkaas waxay labadooduba wada qayliyaan ilaa saacadooyin. Roosterna wuxuu Maki siiyey shaal uu xirto, taas oo Makia kalsooni siisay. markii uu guriga ku noqdo, Makia wuxuu sariirta la seexday Liam. marka qoyska oo dhan uu hurdo, Snow wuxuu isku dayay inuu shabeelka si qarsoodi ah uga saaro guriga, laakiin Makis ayaa soo baraarugay oo qabtay. Eygu u wareeray oo wuxuu weydiiyey waxa socda, laakiin Daisy ayaa tiri waqti uma hayno inaan u sharaxno, yeydu way imanayaan. intaas kadib ayay arkeen in eydu ay horay u joogeen. Snowna wuu argagaxay oo wuxuu ka baqay in la cuno, laakiin Makis wuu ka duwan yahay, wuxuuna si geesinimo leh hoos ugu degay si uu uga hortago. inkasta oo uu keligii yahay, wuxuu isku dayay inuu cabsi geliyo yeyda, laakiin milkiilaha ayaa gadaashiisa ka soo muuqday oo ku tuuray qolka hoose. intii Makis isku dayayo inuu ka soo baxo, xayawaankii kale waxay u baxeen saqafka. Snow wuxuu isku dayay inuu la dagaalamo daanyeerka maamulaha, laakiin si fudud ayaa loo garaacay. markaas ayay yeydii soo gaareen saqafka, maamulihiina wuxuu huwi ku dhuftay irbad hurdo ah, shabeelkiina wuu suuxay. Daisy waxay isku dayday inay lugta maamulaha qaniinto, laakiin way yar tahay oo waxba kama tari karto. waxaa iyaduna lala qabtay shabeelkii. markii Makis ugu dambayn ka soo baxo qolka hoose, maamulaha wuxuu shabeelkii dib ugu celiyey qafiska oo wuxuu kaxeeyey isagoo dib ugu celinaya meesha hore uu joogay. si ay u badbaadiyaan saaxiibadooda, Makis iyo Captain Snow waxay isticmaaleen gaadhiga Norman si ay ula socdaan bini'aadamka. intii ay socdeen, Snow wuxuu caawimaad ugu yeeray. Giigit way ka soo jawaabtay iyadoo urursatay bisadaha oo dhan. si ay u caawiyaan, waxay gabadhii waayeelka ahayd ka dhigeen inay u malayso in cuntadii ay ka dhammaatay si ay suuqa u aado. bisaduhuna waxay qarsoodi ugu dhaqaaqeen steerinka iyada oo aanay dareemin. maamulaha isagoo aan ogeyn in bisado badan soo socdaan, wuxuu shabeelkii ka saaray qafiska oo wuxuu saaray tareenka isagoo ugu hanjabaya qalab koronto. markii tareenku uu dhaqaaqo, Makis iyo saaxiibadiisa waxay daba socdeen gaadhiga, laakiin dhulku uu burburay, waxayna ku qasbanaadaan inay lug ku sii socdaan. Makis wuxuu ku booday tareenka isagoo Snow afka ku qabsaday. Normanna halkaas ayuu ku haray. Norman oo raadiyaha ku jira ayaa sheegay inay tareenka saaran yihiin. Giigitna waxay warkii u gudbisay bisadaha. Snow oo kor saaran tareenka wuu simbiriirixday, wuxuuna ku dhacay gaari kale oo uu ka dhex arko Daisy oo lagu xiray qori weyn. Makis oo kore kala socda ayaa doonaya inuu caawiyo, laakiin yeydu gadaal ayay uga soo muuqdeen, taasoo ku qasbaysa inuu horay u sii ordo si uu uga baxsado. gudaha gaadhiga tareenka, Snow wuxuu u dhawaaday si uu u caawiyo Daisy, laakiin daanyeerkii ayaa ku tuuray ul. bakaylaha oo aad u dhaqso badan ayaa ka booday dhammaantood. midkii ugu dambeeyeyna wuxuu ka celiyey daanyeerkii, wuxuuna qabtay shaalkii uu xirnaa oo ku xayirmay alwaax. markii cadowgii uu dhaqaaqi waayey, Snow ayaa ku boodayey oo ku dhuftay laad, taasoo keentay alwaaxdii inay dhacdo. markaas labada xayawaan ayaa si toos ah ayay isu wajahday. Snow wuxuu bilaabay inuu daanyeerka ku dhufto laadyo iyo feer badan wejigiisa iyo calooshiisa. daanyeerkii oo u muuqda mid tabar daran, Snow ayaa u soo dhawaaday si uu u soo dhameeyo dagaalka, laakiin waxaa lama filaan lagaga dhuftay ul uu daanyeerku watay. dhanka kale, Makis oo kore ku socda tareenka wuxuu ku guulaystay inuu dhaco mid ka mid ah yeydii, wuxuuna laba kale ka riday tareenka isagoo isticmaalaya tuubooyin. gudaha gaadhiga, daanyeerku wuxuu shiday ulal dab ah, wuxuuna isku dayay inuu shido fiyuuska qoriga weyn oo Daisy lagu xiray. Snow wuxuu joojiyey dagaalkii si uu u damiyo fiyuuska, laakiin Daisy ayaa si qarsoodi ah uga baxday qoriga. markaas Snow iyo daanyeerkii waxay galeen dagaal qabsasho iyo dharbaaxo ah. ugu dambayna Snow ayaa fartiisa ku dhuftay isha daanyeerka. Daisy oo fursad heshay, waxay qorigii u rogtay dhanka daanyeerka, wayna ku riday, taasoo keentay in si xoog leh cirka loogu tuuro. halka qaybta hore ee tareenka, Makis wuxuu ugu dambayn gaaray maamulaha, laakiin waxaa ku dhacay daanyeerkii oo ka dhacay tareenka. isaga iyo Makisna waxay ku wada dhaceen dhulka. daanyeerkii wuu miyir beelay, Makisna wuu istaagay, wuxuuna u orday isagoo jaraya jidka. ugu dambaynna wuxuu dul istaagay god weyn oo tareenku mari doono. markii uu tareenkii soo dhawaaday, Makis wuxuu ku booday gaarigii hore, wuxuuna ku rogmaday muraayada isagoo ka qaniinay maamulaha lugtiisa hoose. intii ninka baniaadamka ahi xanuunsanaayay, Snow ayaa wejigiisa ku booday, labadooduna way wada garaaceen ilaa ay dhulka ku tuureen. iyagoo u malaynaya inay guulaysteen, waxay bilaabeen inay shabeelkii la baxsadaan, laakiin maamulihii ayaa kacay, kadibna silsiladii shabeelka soo jiiday, wuxuuna soo qaatay bastoolad si uu ugu dilo. markaas ayay ayeeyadii iyo bisadaha yimaadeen, waxayna weerareen maamulkii, xitaa waxay ku jiireen gaadhigeeda si ay u hubiso inuusan mar dambe dhibin. hadda oo qof walba uu badbaaday, ayeeyadii waxay xayawaanka dib ugu celisay guriga, waxayna shabeelka
shabeelkii ku korsatay iyadoo moodaysa inuu yahay bisad yar. Dhinaca iyo guryaha kale qof kasta wuxuu ku noqday noloshiisii caadiga ahayd. Liamna wuxuu bilaabay iskuul, laakiin markan Makis ma baqayo oo wuxuu doonayaa inuu ilmaha tuso horumarka dunida.